ma ogtahay inay jiraan 4 shay dadka ku dhiirigeliya inay wax qabtaan ama ficil sameeyaan. 4tan shay waxaa loo soo gaabiyey RICE, Reward, Ideology, Coercion iyo Ego. haddaba waxaan rabaa inaan si yaro fudud kugu sharxo. kaliya talaag saar fiidiyogan. kow, Reward oo macnaheedu tahay abaalmarinta. waa abaalmarinta uu qofku helayo markuu wax sameeyo ama ficil sameeyo. hadduu qofku ogayo inuu abaalmarin helayo kadib markuu ficilka sameeyo, qofkaas wuxuu samayn doonaa wax walba loo diro. abaalmarinta waxaa ka mid ah lacagta, inuu qofku sumcad helayo, inuu farxad dareemo kadib markuu sameeyo ficilkaas. xitaa jacaylku soo geli karaya abaalmarinta, waayo qofku markuu wax sameeyo ayuu jacayl helayaa. 2, Ideology. Ideology macnaheedu waxa weeye fikradaha iyo wuxuu qofku aaminsan yahay. qofku wuxuu aaminsan yahay waxa ku dhiirigeliya inuu wax qabto. su'aalo yar fudud aan ku siiyo. qofka muslimka wuxuu aaminsan yahay hadduu miskiin quudiyo inuu ajir helayo. aaminsanaantiisa ku dhiirigelinaysa inuu qofkaas ficilka sameeyo ama miskiinka quudiyo. aaminaadaadu waxay kaa dhigi karaysaa inaad wax samaysid ama ficil samaysid. 3, Coercion. Coercion macnaheedu waxa weeyaan qasabka ama hanjabaadda. waa marka qofka lagu qasbo ama loo hanjabo lagu yiraahdo waxa sameyn weydid wax xun baa kugu dhici doona. kadibna qofkaas wuxuu samayn doonaa waxa loo diray. waana mid ka mid ah waxyaabaha qofka ku dhiirigeliya inuu wax sameeyo. 4, Ego. haddaan si fudud u sharaxno waxa weeyaan macnaheedu waa sawirka qofku naftiisa ka haysto, waa sida qofku naftiisa ka aaminsan yahay. hadduuna qofku naftiisa jeclayn ama uu naftiisa wax xun ka aaminsan yahay, kadibna qofka la ammaano, waxa laga yaabaa inuu ficil sameeyo, waayo waxa kor loo qaaday kalsoonidiisii. Ego waxay noqon karaysaa mid ka mid ah waxyaabaha qofka ku qasbay inuu shay qabto. sidoo kale waxaan rabaa inaan ku ogeysiiyo inuu diyaar yahay buuggiisa Raha Basaaska. fadlan haddaad doonaysid inaad wax badan faa'iidid, buuggaas wuu ku anfacayaa. lambarka WhatsApp-ka igala soo xidhiidh haddaad doonaysid inaad iibsatid.